Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan idiin soo jeedin doonaa muslimiinta Rohingya. Maxaad ka taqaanaa Rohingya? Rohingya waa dad muslimiin ah oo ku dhex nool dowladda ku taalla koonfurta bariga Aasiya. Waxay ku hadlaan afka Rohingya oo ka gedisan afafka looga hadlo gobollada Myanmar, mana loo aqoonsana inay ka tirsan yihiin 135 koox ee ku nool dalka, waxaana loo diiday sanadka markuu ahaa 1982. muwaadinimada dalka oo wax dhalasho ah ma haystaan, badankoodana waxa ay ku nool yihiin gobolka Rakhine oo ku yaala xeebta galbeed ee dalka, kamana bixi karaan oggolaansho la'aan. waana gobolka ugu saboolsan, waxayna xukuumadaha talada iskaga dambeeya sheegaan in muslimiinta Rohingya aysan u dhalan dalkan oo ay yihiin dadka ka yimid Bengal, sidaasna ugu mid ahayn kooxaha dastuurka Myanmar ee loo aqoonsan yahay. sanado badan muslimiinta Rohingya waxay la kulmayeen isirgooyin iyo barakicin qasab ah. ciidanka Burma oo gacan ka helaya Ingiriiska waxay xasuuqeen dad gaaraya 30,000 oo muslimiinta Rohingya ah sanadka markuu ahaa 1938, iyo mid kale oo dhacay sanadkii 1942 oo lagu xasuuqay 100,000 oo kale markay ciidamada la wareegeen dalka Myanmar markuu ahaa sanadka 1962. waxay si daba jooga barkicin qasab ah ugu sameynayeen dad ka badan 2 milyan oo muslimiinta ah oo badankooda ay u barakaceen Bangladesh, Indonesia, Pakistan iyo meelo kale. qadiyadaha Rohingya waxay soo bilaabanaysaa sanadka markuu ahaa 1784 markii boqorka Bodabai ee Badiisaha uu qabsaday gobolka Arakan.